describe statistics iyo inferential statistics laba qayb cutubkan wuxuu ka hadlayaa oo si gaar ah oo faahfaahsan uga hadli doona aan ku qaadan doono waa qaybtan describe-ka statisticska qaybtan buugga kama hadli doono marka qaybtan ayaan baran doonaa qaybtan hadda waxay tahay marka qeexitaankan aan qaadan qaybtan oo describe statisticska laba qayb qeexitaankan aan qaadan doonaa qaybtan marka waxaan ku bilaabaynaa describe statisticska muxuu yahay waxaan dhahaynaa marka waa consist of collection organization summarization and the presentation of data waa consist of describe statistics consist of wuxuu ka kooban yahay collection in xogta la soo ururiyo organization in la habeeyo summarization in lagu sameeyo soo koobid ama la soo macnaha summarize lagu sameeyo oo ah soo koobid sidoo kale presentation of data in xogta markii la soo ururiyo kadibna la habeeyo kadibna la soo koobo in la soo jeediyo ayaa waxaa loo yaqaanaa describe statistics qaybta inferential statistics maxay tahay inferential statistics marka waxay tixgelisaa oo kaliya interpreting and drawing conclusion inay la turjumo kadibna la sawiro qaybtaas bis qaybta ka hadasha statistics ka hadla in xogta la sawiro sidoo kale la turjumo ayaa waxaa loo yaqaanaa inferential statistics marka hadda waxaan ogaanay in statisticsku loo qaybiyo laba qayb ah describe statistics iyo inferential statistics describe muxuu yahay waa qaybta ka hadasha in xogta la soo ururiyo kadibna la habeeyo kadibna la soo koobo sidoo kale la soo jeediyo qaybtaas kaas waxaa loo yaqaanaa describe statistics qaybta cagsiga ku ah in xogta la sawiro sidoo kale la turjumo ayaa waxaa loo yaqaanaa inferential statistics qalina collection and organization data xogta in la soo ururiyo iyo in la habeeyo maxay tahay horta raw data ama ungroup data waxa la jira raw data waxa marka xogta san hore soo sheegnay xogta markay qayrinta aan wali waxba lagu sameyn ama la analyze gareynin ama la habeyn ay waxa loo yaqaanaa raw data ama ungroup data waa data aan la habaynin marka waxa noqonaysa waa data that have not been organized waa data ama xog aan la habaynin oo markii la soo ururiyay kadib waxba lagu sameeyno oo la analyze gareynin group data waxa waa cagsigeeda waxa waa data organized and summarized in frequency waa data la habeeyay sidoo kale soo koobay qaab frequency ah oo soo noqod lagu sameeyay raw data ama ungroup data waa markay datada ay tahay mid aan la habaynin group data waxa markii datada ama xogta markii la habeeyo waxa loo yaqaanaa group data